xaqiiqooyin ku saabsan kubadda cagta ee Afrika. kow Cameroon waa xul qaran oo soo saaray ciyaartoy heer caalami ah oo ka badan wadan kasta oo kale oo Afrikaan ah inta uu soo saaray waxaanu koobka Afrika ku guuleystay 5 jeer. 2 Masar kooxda ugu awoodda badan tartanka koobka Afrika iyo waliba heerarka kala duwan ee naadiyada Afrika. 3 Nigeria 3 jeer ayay ku guuleysatay koobka Afrika. waa koox tayo leh isla markaana awood leh oo leh koobabka ugu badan ee heerarka kala duwan ee Afrika. 4 Ghana ciyaartoy tayo leh ayay soo saartay sanadihii la soo dhaafay 4 jeer ayay ku guuleysatay koobka Afrika oo magaceeda lagu qoray laakiin hadda way lumisay kubadda iyo waliba heerkii ay gaadhay iyadoo oo aan ku guuleysan koobka Afrika muddo 30 sano ah. 5 Ivory Coast 2 jeer ayay ku guuleysatay koobka waxaanay soo saartay ciyaartoyda heer caalami ah 10kii sano ee la soo dhaafay marka loo eego kooxaha kale ee Afrika. 6 Algeria kooxda awoodda badan ee kubadda cagta ee Afrika waxa lagu naanaysaa kooxda dacwadii saxaraha ama saclabu saxara. joogteynta iyo soo saarista ciyaartoy tayo leh oo had iyo jeer ayaa lagu calaamadiyay wadankan waana kooxda ugu cadcad koobka Afrika. 7 Senegal koox xoog ku leh kubadda cagta Afrika nasiib darro ma helin wax ka badan hal koob oo Afrika ciyaartoy tayo leh ayay soo saartay sanadihii la soo dhaafay. 8 Zambia waa koox awood leh sanadihii hore ee kubadda cagta ee Afrika xoog ayaa loo yaqaanay tartanada ugu badan ee ciyaaraha kubadda cagta oo qurux badan ayay ka qayb gashay waxa ay gaadhay 3 finaal koobka Afrika waxaanay ku guuleysatay 3daasi jeer hal mar koobka Afrika. 9 Mali nasiib darro aad u xun ayaa haysata kooxdan oo ah koox tayo leh ciyaartoy tayo lehna soo saartay sanadihii la soo dhaafay mana jirin wax koobka Afrika ah oo ay ku guuleysatay Mali. 10 Congo waa Congo DR sanadihii hore waxay ahayd koox miisaan leh oo aad uga tartama isla markaana soo saara ciyaartoy heer caalami ah oo dunida ka muuqday laakiin waxa ay soo saareen awoodda kubadda cagta 2 goor inay gaadhaan oo kaliya koobka Afrika ama inay qaadaan koobkaasi. 11 Tunisia koox adag oo lala ciyaaro mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan qaaradda Afrika laakiin aan loo tixgelin koox qaran oo awood weyn leh hal jeerna ku guuleysatay koobka Afrika xilli ayay ka mid ahayd wacdaro kooxaha dhiga. 12 Liberia wax kooxda kaliya Afrikaan ee soo saartay ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka oo hal mar ku guuleystay kaalintaasi waa George Weah hadda ayuu madaxweyne ka yahay isla wadankaasi Liberia marka laga reebo taasi wax kale ma hayaan. 13 Jamhuuriyadda Koonfurta Afrika waxay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan 10kii sano ee 1994 ilaa 2004 iyadoo oo hal koob ku guuleysatay xilliyadaasi waana dalka kaliya ee Afrika ee martigeliyay koobka adduunka ee FIFA taasoo ilaa maanta lagu tixgeliyo lagumana sheegay inay tahay koox awood ku leh koobka Afrika. 14 Morocco waa koox awood ku leh kubadda cagta Afrika dhawaana waxa uu jabiyay rikoodhka kubadda cagta adduunka ee FIFA ee World Cup-ka iyadoo oo noqotay xulkii ugu horeeyay ee Afrika ee gaadha semi-finalka ama afardhamaadka koobka adduunka waxaanay hal mar ku guuleysatay koobka Afrika. labada kooxood ee ugu dambeeyay oo kala ah Ethiopia iyo waliba dalka Congo Brazzaville min hal jeer ayay ku guuleysteen koobka oo waliba sanadihii ugu horeeyay balse wax kale oo sheeka ah dhinaca ciyaaraha waxba islama hayaan.